ninka ardayda cabdiraxmaan baa laydhaa naanaysi salaado casar ciidanka booliisku way soo qabteen waanu xidhan yahay waxaan lagu eedeynayaa dembi ciqaabeed galay oo ah inuu dembi qarannimada somalilan liddi ku ah inuu galay iyo aflagaadooyin buu geystay dembigaasuu ku xidhan yahay sharcigana waa loo sameeyey qof kastoo dembi gala waa la qabanayaa hadduu ajnabi noqdo hadduu somalilan noqdo qofkii dembi gala waa la qabanayaa ninkaasi wuu xidhan yahay kiiskiisa waa la baarayaa wixii ka soo baxana waxaan u gudbin doonaa haddii ilaahay ka dhigo maxkamadda iyo xeelaaninta awoodda leh ciidanka booliisku ninkaas waxba uma geysan waxna lama dilinin isagu maa ku andacoonaya ciddisha ma jirto booliisku waa ka wax ilaaliya waa ka dadka nafta iyo maalkaba ilaaliya cidda booliisku ma dilo isagaba shaqada loo egmadaa ah inay dadka badbaadiyaan inay xuquuqdiisa ilaaliyaan waxaan leeyahay waxa uu leeyahay waa la dilay waana la farid oo waxba kama jiraan anigo dadkaasi dad aan waxba ogeyn weeye waxa weeye dadkaasi waa dad waxba ogeyn war qofka hadduu dembi galo dembigu waxaad gudub kastoo loo geystay sharciga ninkani dembi uu ka galay qarannimada jamhuuriyadda somalilan wuxuu geystay aflagaadooyin buu geystay sharcigeenu wuxuu dhigayaa in la qabto oo la xidho kiiskiisa waa la baarayaa si degdegana insha allah waxaa loogu gudbin doonaa maxkamadda iyo xeelaaninta awoodda leh